asina uurtay safiirku saddex xabadood oo ta ugu horeysay uu iskaga dhuftay canka bidix gudihiisa meel kale oo wax dhibaato ka gaadheena afkiisa aanay jirin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. meel kasta aad ku joogtaan saaxiibayaal waa salaamintiin. bal waxaan ka hadlayaa arrinka ninka safiir ku xigeenka ahaa waliba safiir ku xigeenka Jabuuti ee Cabdifataax ee hadda dawladda Soomaaliland ay warka ka soo saartay ee ay ku sheegtay inuu isagu isdilay xabadna uu canka iskaga dhuftay laba xabadoodna isagoo dadka yool habaabinaya oo xagga sare u riday. ugu horreyn waxaan kaa codsanayaa muuqaalka la garayso oo aad sheer garayso subscribe-tana aad saarato familka talaan siin doonaa waxa weeye bal arrinkaasina siduu u eegyahay iyo siduu macquulku iyo waan sheegi doonaa. ugu horreyn ninka tabinaya xogta akhriyaya waxa uu sheegay isagu inuu xog u sheegay oo uu ku yidhi war laba nin baa yimi saddex nin baa yimi laba tuuta gashay midna aanu tuuta gashanayn xabad igu soo riday waana kaa yaan la kulanay waxbaan ka weydiinay waxa uu noo sheegay in isagoo guriga hooyadii albaabka dibadda hortiisa fadhiya kursina ku fadhiya uu maqlay shanqadh ka soo wareegaysa dhinaca koonfureed ee guriga. markii uu daymoodayna uu arkay saddex nin oo laba ay xidhan dirays toota ah midna dirays kaake ah kadibna hal nin oo ka mid ah saddexdii nin markuu hal mitir u soo jiray qiyaastii uu xabad afka uga dhuftay. inaad daawateen baan rajeenaya balse markaanu baadhi samaynay ka madax bannaan waxaanu ogaanay baaskooladii xabadda laga ridayey iyo qasharadii inuu isagu sitay. waxa uu sheegay inay xabadda ku dhacday ay halkaas maaragtay ka soo baxday taasuu sheegay haddii xabaddu saa ugu soo dhici lahayd inay ilkaa jajabin lahayd balse xabaddan intay xabad inta oo qofku isku dhuftay oo afka dhaafiyey halkaa iskaga riday kadibna ay halkaa ka booday oo aanay macquul ahayn inta bab lagu siiyey inay aayar halkaa iska barto oo ay waxaan oo dhan galaafan lahayd waana kaa isagoo ka hadlaya. uurtay safiirku saddex xabadood oo ta ugu horeysay uu iskaga dhuftay canka bidix gudihiisa meel kale oo wax dhibaato ka gaadheena afkiisa aanay jirin. inaad daawateen baan iyana rajeynaya. waa yahay ugu horreyn waxaan ka hadlayaa bal inay sax tahay iyo inaanay sax ahayn. horta waa war dowladeed dee mar kasta dowladda waan ku kalsoonnahay. markaad fikir ahaan eegto waaqaca la taagan yahay aad eegto waa macquul wayna noqon kartaa laakiin maxaa ku kalifi kara inuu ninkaasi isdilo? su-aalina isweydiin bay mudan tahay. xagga dambaan barnaamij ka raaci doonaa. laba arrin baa ayaa ku kalifi kara qofkan inuu maskaxiyan wuxu noqday oo aanu qofkani caadiba ahaynba oo uu dharka iyo maryuhun iska xidhan yahay xilkana la iskaga dhiibtay balse ninkan aanu maskaxiyan caadi u ahayn. haddaanu qofku maskaxiyan caadi u ahayn wax kastaa suurtagala ka ah wax kastaa ka suurtagala. ka labaad ama qodobka labaad waa in culays soo fuulay. culayskaasi wax kastuu noqon karaa mid familiyad buu noqon karaa mid nololeed buu noqon karaa wax kasta ayuu noqon karaa. culayskii markuu ka tambatay waxuu kaluu noqon karaa hanjabaado siyaasadeed waxau noqon karaa culays siyaasadeed waxau noqon karaa waxyaabo kale. adigu culayska adduunyadu noqon karaa hanjabaado dowlado shay wax kastuu noqon karaa. waxaasi markuu isku batay inuu go'aansado inuu nolosha isdhaafiyo labada arrimoodba suurtagal way noqon karaan. su-aasha haddaba isweydiinta mudan baynu tegaynaa. su-aasha isweydiinta mudan waxa weeye ninkan 3 wiil ka hor baa la dilay. waxaa lagu dilay Hargeysa iyo Boorama dhexdeeda. booliska ka hadlay barasaabka gobolka Awdal baa ka hadlay
cid kastaa ka hadashay maxaa isku soo beegay dilka iyo dilkan waa su'aasha isweydiinta badan markaa hore miyuu isdilay mise waa la dilay mise markaa horena waa la dilay haddana wuu isdilay waxaa soo su'aal isweydiin bay badan tahay ugu dambayn familka ninkaa dhalay iyo reer booramaan la hadlaya horta samaro way fara badan tahay oo waa qabiilo fara badan kale oo waa sida reer sheekh isxaaq oo kale way kala baxbaxaan ninkaa iyo familkiisaba waan la hadlaya ninkaa dhalinyarta ah waxaan leeyahay waxa weeye wiilkiina gacanta ku haysta hadduu xanuunsanayo oo uu isdildilayo daweysta oo waxa weeye dee ka warhaya haddii cadow kala baacsanayo oo bilaayo kala baacsanaysana dee ka ceshada qofku waxaan uu qabiilka uga dhalanayo ee uu tolka uga dhalanayo ee ilaahay qabiilka weyn uga dhalanayaa dee waa inay difaacaan hadduu xanuunsadana ay dee daweystaan weeye ninkaa waa aragtaan warka la soo saaray si fiican baa u aragtaan hadduu qof xanuunsanaya yahayna daweysta oo waxa weeye idinku dee waxa weeye mas-uuliyaddiisa qaata aniga waa sida fikirkayga ah haddii la dilayna haddii cadow kale iyo bilaayo kala baacsanayaanna dee waxa weeye ka ceshada oo afka ku dhufta waxay baacsanaya wiilkiina haddii uu burogaraam wax kale ay galeen oo culays nololeed soo food saaray oo waxa weeye siyaasaddu ka tambadisay oo waxyaabo kale ay ku dhaceen oo liberation maskaxooda stress ku dhacay oo dee waa nin yaroo dhalinyaro wax aanu qaadi karayn ay ku dhacday to waxa weeye u dejiya ee qofku inuu istilaynay waxa weeye diinta islaamka ay ka tahay xaaraan u sheega in qofku haddii uu istilo iyo hadduu naftiisa biimeeyo uu naar gelayo u sheega in culays kasta fudeed ka dambeeyo u sheega in waxa weeye noloshani daarul qaxar tahay u sheega dee waayo waxa weeye dee diinta islaamka qofka dabcan stresska lagaga saaraaba oo qof diinta yaqaana inta badan inuu isdilo maaragtay ma suurtoodo waayo wax kasta qur-aankeenu inoogu xusan yahay qofka ibni aadanka ee muslimka ah waxa weeye adduunka dhibaatooyin badan baa maaragtay soo maraya maaragtay wax fudeed badan iyo farxad badanna way soo marayaan qadarta ilaahayna inaynu aaminaa waa waajib waad garanaysaan haddii liberation iyo wax ka tambatay ay jiraan oo ku kalifaya inuu isdilana ama jacayl ahaato ama siyaasad ahaato ama stress iyo hanti ahaatane dee waxa weeye dee u sheega inay waxani ka xuntay dhaqanku hadda ku kacaya intaasoo waxbaa dhici kara marka insha allah barnaamijkan intaasan kaga qayb qaadanayaa bal adna waxay fikirkaaga commentiga dugula wadaagi waxaan kaa codsanaya inaad like garayso share garayso subscribe inaad saarato